Ku soo dhawaada sheekadan dhabta ah oo noo iftiiminaysa goobaha qaar ee shaqada Soomaaliya iyo dulmiga ka jira. Waxay tiri waxaan muddo 3 sano iyo bar ah ka shaqaynayay xarun caafimaad oo MCH ah ayna maamusha hay'adda Bisha Cas. Waxaanan ku shaqaynayay muddadaas si bilaash ah anigoo rajaynaya maalin maalmaha ka mid ah inaan shaqo heli doono oo mushaar aan qaadan doono. Gabar Soomaaliyeed oo iga codsatay inaan magaceeda iyo halka ay joogto sheegin ayaa qoraalkan ay ii soo dirtay sidaas ku bilowday. Waxaanay sidoo kale iga codsatay inaan la wadaago qisadeeda walaalaha Soomaaliyeed ee ku xiran boggaygan. Gabadhu iyadoo qoraalkeeda sii wadata waxay tiri, muddo kadib waxaa soo baxday shaqo isla isbitaalkii aan joogay, laguna doonayo 5 qof oo shaqaale ah oo mushaar joogto ah qaata. Madaxda xarunta aan ka shaqaynayay waxay ii sheegeen inaan soo qorto warqad aan ku caddaynayo khibradeyda shaqo iyo codsi shaqada ah. Waan dirsaday codsigii, waxaana qaar ka mid ah madaxda isbitaalka iyo shaqaalaha aan la shaqaynayay ay igu dhaheen, waxaan u gudbinay magacaaga iyo nambarkaaga gobolka iyo hay'adda, iyaga ayaana kula soo xiriiraya. Shaki ayaa i galay. Waxaanan maqlay in dadka laga shaqaalaysiin rabo isbitaalka mar hore la diyaarsaday, lana gudbiyay magacyadooda iyo nambaradooda. Waxaa dhacday anigoo jooga gurigayga ayaa waxaa ii yimid qof ka mid ah dadkii shaqadoonka ahaa, waxaana uu ii sheegay in imtixaankii la qaybiyay lana siiyay dadkii u diyaarsanaa, lana rabay in laga shaqaalaysiiyo isbitaalka. Waxaana dhacday in la shaqaalaysiiyay dad aan weligood aan hal mar xitaa ka shaqayn isbitaalka. Anigoo joogay muddo sanooyin ah, si bilaash ahna ku shaqaynayay, imtixaanka la iiga reebay, dulmina la iigu sameeyay. Dadka shaqaalaha laga dhigay badankooda waxay qaraabo dhow yihiin madaxda isbitaalka iyo kuwa hay'adda Bisha Cas. Aad ayaan u murugooday xaqiiqdii marka aan maqlay in loo qaatay isbitaalka shaqaale cusub, anigoo intaas oo muddo ah aan ka shaqaynayay la iiga reebay. Intaas kadib waxaan weydiiyey dadka madaxda ka ah isbitaalkii aan joogay, maxaa la iiga reebay shaqaalaha cusub ee isbitaalka. Waxay iigu jawaabeen, dadkaada madaxda ah ee aad isku qabiilka tihiin maxay garab kuu siin waayeen, annaga waxba kuma qaban karno. Aniga oo intaasoo sana joogay una lahaa khibrad shaqadan imtixaanka loo gelayay, welibana 3 sano si bilaash ku shaqaynayay, marka si xaq darro ah la iiga reebay, waan naxay, murugo badan ayaana iigu soo darsamay. Bishii Maarso 27keedii sanadkan 2020, maalin Jimco ah, saacadduna ay ahayd 1:15 ama 7 saac iyo bar duhurnimo ee Geeska Afrika, waa maalintii iigu murugada badneed noloshayda. Waa maalin aan rajaynayay inaan noqdo shaqaale caafimaad oo mushaar qaata, laakiin aan waayay. Runtii qalbigayga kama go'in murugadaas, waxaanse ku samrayaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu xaqayga iiga soo qaadi doono maalin aan maanta ahayn, ayay tiri gabadha Soomaaliyeed. Waxaan ka soo xiganay qisadan Al-Ustaad Cabdulaahi Nuur Colombo. Waxaan intaasi sii raacsan lahaa, halkaasi waxaa inooga cad inay dadka qaar dulmiga fududaystaan iyagoo aan warba u hayn cawaaqibka ka dhalan kara, halka qaar kale ay dulmiga uga qayb qaataan si dadban. Ruuxa maanta ku qanca boos walaalkii laga soo afduubtay ama qabyaaladaysi lagu keenay, ogow in maalin dhow ay isagana seefta la tegi doonto. Waa astaamo ka mid a marka bulsho dhinacyo badan ka burburto ama la hareer mara cadaaladda. Aragtidaada arrinta gabadhaas qabsatay sidee u aragtaa? Fariin noocee ah ayaadna u diri lahayd kuwa musuqa xaqa shacabka? Muuqaalkan bulshada aad ayuu muhiim ugu yahay, waana wacyigelin guude inoo sheer gareeya.